Abubakar Bilay Isxaaq waa mas'uul ka tirsan xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer waxaanu sidoo kale u sharaxan yahay golaha deegaanka degmada Burco 2019 haddaba maanta mar aanu waraysi la yeelanay waxa uu dhignaa sida tan tahay dhalinyarada gobolka gaar ahaan dhalinyarada siyaasadda lagu tiriyo waxaana tahay musharax ka tirsan u tartamaya golaha deegaanka ee 2019 ka waran aragtida kugu kaliftay inaad isu sharaxdo xilkan bismillahir rahmaanir rahiim orto mar labaad waan u mahadcelinayaa TV-ga SBS runtii aragtida ugu kaliftay inaan u tartamo ama soo taago golaha deegaanka ama musharaxnimada golaha deegaanka 2019 ee degmada Burco runtii aragtiyo fara badan oo anigu dareenkayga ku dhaliyay iyo mid bulshadaba ah degmada bulshada gobolka Togdheer ah oo runtii oo aan ka arkay ayaan runtii igu kalifay markii aan arkay dhibaatooyinka haysata degmada markii aan arkay wax qabad la'aanta degmada Burco oo aan wax qabada golihii deegaanka ay doorteen ee codkoodii ay ugu hibeeyeen ay ugu hiliyeen runtii ay tabanayaan waxyaabo fara badan oo baahiyihii adeega aasaasiga ah ee golaha deegaanka ee degmada Burco imika shacabku waxay sheegaan inay ku khasaareen oo aan shaqadii ay u egmadeen aanay waajibaadkoodii aanay ka soo bixin ka waran bulshada reer Togdheer maxaad adigu kaga duwan tahay kuwan ee aad u soo bandhigaysaa su'aashaas waa mid jirta oo xaqiiqo ah oo aan la qarin karin runtii sidaan cadceedda dee shacabka loo saarin bay arrinkaas u jira waxyaabaha markii hore amaana qaladka iyo maanta bulshada Togdheer waxyaabo badan oo iyaga kooskareeyeen oo ay ugu horeeyeen oo iyagu ay ka yihiin ayaa runtii maanta oo haysta yaa wax qaban kara lama oran yaa wax bedeli kara lama oran yaa maanta booska ku haboon oo maanta ay bulshada Togdheer wax ku soo celin kara runtii qof kasta iyo reer kasta wuxuu keenay kii ay oran lahayn yaa wax cuni kara yaa wax cuni kara yaa wax goosan kara yaa wax ridan kara ama gobol ahaanba wax ugu doodo ama wax ugu raadiyo runtii way yaraanaysa haddii uu wax celiyana wax weeye wuxuu wax celinaya waxa weeye waa hadduu mid reerkooda kaxeeyo oo meelkiiyo ama uu shaqo siiyo marka runtii horta qodobka koobaad waxaan oran lahaa dee shacabka reer Togdheer waxyaabo badan oo ay qayb ka yihiin baa jira oo iyaga qudhowda ay qayb ku leeyihiin waxa weeye maantana wax maran lahaa runtii markan maanta waxa weeye waqtigoodii dhamaa iyaga waxa weeye waxba kama harin maxaad Abubakar oo bulshada oran lahayd haddaba golaha deegaanka 2019 si aanay kuwan qaar la mid u soo bixin aad oran lahayd ku doorta system nooceed jeclan lahayd bulshada reer Togdheer iyo shacabweynaheedaba guud ahaan maadaama waxyaabo badan in nidaamkii siyaasadda horta dad qabaa'il ah baynu nahay oo waddankeena dastuurkeena laftigiisa ayaa doodta sheegayo waxaan ay ku yaalan qabaa'ilka iyo waxaan wax waa laga bedeli karaa waa in wax laga bedelaa wixii hore laga soo gudbay wax cusub ama wax dan shacabka ku jirta hadii la arko ama nidaam ka yar habboon sidii hore ka yar fudud la arko waa in nidaamka la raaca runtii waxaan oran lahaa soo jeedin lahaa haddaynan ka sare bedeli karin oo xaggii sare ay waxaan ku qoran yihiin in orto qodobka koobaad waxa weeyaan dhalinyarada awood la saaro dhalinyarada maskaxdooda firfircoon ee dalka wax u baratay aqoonyahanka aqoonta leh waxa weeye ee muwaadinimadii Abubakar waxaad ka mid ahayd waqtigii xisbiga tartamayeen xisbiga kulmiye gaar ahaan ragii gobolka Togdheer u cadcada waxaanaad ka mid ahayd guddiga fulinta gobolka ee xisbiga kulmiye ka waran xukuumadan maadaama xisbiga guulsaday madaxweyne Muuse garwadeenka ka yahay aragtideeda sidee kula tahay maadaama dadka qaar dhinac ka eegayaan su'aashaas waa su'aal muhiim oo ku habboon oo runtii haddii orto marka hore Maxamed Nuur waan kaaga jawaabo dawladda xisbigu guuleystay waa runtaa maantana xisbigii aanu ku tartamayna ee aanu ku soo taabnay horta uu guuleystay maanta taladii isaga haysta taab qasaarna ma joogo runtii qofkuna wuxuu xun yahay
oo ay laba murugo ku tahay markuu xisbigii uu waday uu tacabna ka baxay soona bixinna anaguna dee qoys kama joogno mucaaradna ma ihiyo dadka qaar baa is yidhahdaa raggiisu waa kaa ninkii soo halgamay oo halkaa jooga ee u soo dhintay xisbiga ee u soo halgamay oo eedan iyo dhaleecayn waxa weye cidluu kaga tegey runtii xisbigaanu kama tegin oo waan ku jiraa xisbigayga insha allah waanan ku jiri doonaa. maxaad ku soo gabagabaynaysaa Abubakar Bilay Isxaaq? runtii laba qodob oo kooban baan ku soo gabagabaynaya ugu dambeynta qodobka koobaad waxa weeye waxa fooda inagu soo haysa bishii barakaysneen Ramadaan oo maalmo kooban naga xigaan oo runtii waxaan runtii hambalyo u dirayaa islaamka guud ahaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacab weynaha reer Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer runtii aan leeyahay ilaahay bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo. sidoo kale waxa inagu soo foodle oo inagu soo foodle oo isna maalmo kooban naga xigaan maalintii qarannimada 18 Maay maalintii shucuurta iyo shucuurteena iyo awooddeena iyo qarannimadeena aynu ka iibin lahayn caalamka intiisa kale aynu xuduudeena muujin lahayn. Axmed Nuur Samraawi, wakiil wareedka telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Burco.